Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu asxaabay follow inoo saara muuqaalka like inoo saar applicationkan ayaan rabaa maanta inaan idin tuso applicationkan magaciisu waa age calculator applicationkan waxaad ku ogaan kartaa waqtigaaga dhalatay sanadka aad jirto iyo inta bilo ay ku jiraan sanadahaas inta maalmood inta isbuucyo iyo xitaa saacadaha iyo daqiiqadaha wax walba iyo sikimaha intaas dhan wuu kuu sheegayaa marka si aad intaas u ogaato marka hore waxaad taabanaysaa qeybta ay ka qoran tahay data birth meesha ay ka qoran tahay yacni qeybta kore ayaad taabanaysaa markaad taabato waxaad gelinaysaa sanadkaad dhalatay aniga waxaan dhashay 2013 maarsa 2000 ayaan dhashtay marka intaas markii aad geliso waxaad leedahay okay markii aad taabato qeybta hoose ee qoraalka ayaad taabanaysaa oo qoran tahay calculate age filart meesha ayaad taabanaysaa wax yar khadka ayaa daaran xayeysiin yar waaye aan gudubno marka sidan ayay kuu soo baxaysaa sidan markii aad kusoo bato waad ujeedaan da-du waa 22 waaye qeybta hoosena waad ujeedaan yacni waa total months waaye yacni 22daas sano inta ay bilo ay ku jiraan waaye waad ujeedaan bilihii waatana tiradooda waatana sidoo kale waa total weeks haddana isbuuci imise isbuuc ayay ku jirtaa 22daas sano waad ujeedaan tirada waatans sidoo kale total days maalmaha waad ujeedaan inta maalmood ay tahay saas oo kale total hours way ku jirtaa total minutes yacni inta daqiiqado ay ku jiraan sanadahaas sidoo kale total seconds intaas dhan ayaad ka ogaan kartaa qeybta kale ugu muhiimsan waxaa waaye qeybta hoose waa next birth dhalashadaada goormee waaye dhalashadaada xigta imise ayay kuga dhiman tahay waad ujeedaan waa 8 months and yani meelo waxaad ugu jeedaa waa 8 bilood iyo 11 maalmood ayaa kuga hartay ama kuga dhiman dhalashadaada xigta waa 13 maarsa 2023 markii la gaadho waaye waad ujeedaan intaas ayaa ugu muhiimsan applicationkan waxaan rabaa inaan idinkaga tusiyo yacni qaabka aad ku ogaan lahayd da-daada iyo inta maalmood isbuucyo iyo waqti ay ku jiraan si aad u ogaato ayaan rabay inaan idinkugu tusiyo sidoo kale waxaan rabaa qeybtan kale hoose waa boon waa waqtigaad dhalatay hadda isla qeybtii labaad haddii aan yani waxaad uga jeeda yani waa 8 bilood iyo 11 maalmood yani meeshii 11 ahayd waa 10 maalmood iyo 17 saacadood iyo 19 minut waaye marka waad ujeedaan asxaabay intaas ayaa kugu dhiman yani dhalashada